Filimka ayaa ku bilaabmaya sarkaal booliis oo Bogas Colotsich lagu magacaabo, kaasoo hortaagnaa bahal weynin badan oo aysan macquul ahayn inuu ka adkaado. Sababta uu bahalkan u hortaagnaa ma ahayn inuu naftiisa difaaco, balse wuxuu difaacayay gabar qurux badneed oo gadaashiisa taagneed, taasoo haddii uu badbaadiyo uu ku helayo hadiyad qurux badan. Si kastaba ahaatee, bahalkan ayaa ahaa mid khatar badan oona diyaar u ahaa inuu ninkan gebi ahaantiisaba dhagax ka dhigo. Aan dib kuugu celiyo halka ay waxaan oo dhammi ka soo bilowdeen. dhowr maalmood ka hor, Bogas oo dalxiis ku jiray ayaa wuxuu doon la saarnaa adeerkiisa Bardaja, iyagoona ka kaluumaysanaya meel u dhoweed magaalada Warsaw ee dalka Poland. Intay kaluumaysanayeen ayaa ay dareemeen inay doonidoodu ay gariirayso. Waxay moodeen inay waxaasi kaluun yihiin. Kadib maalin dheer oo ay soo kaluumaysteen, waxay kaluunkii ku dubanayeen dab furan. Cabaar ayay sheekaysanayeen ilaa waqti dambe laga gaaray. Intay sheekadoodu socotay ayaa Bogas wuxuu maqlay dhawaqa baabuur dhanka waddada maraysay. Bardaja ayuu ka soo tagay, wuxuuna u baxay inuu eego. Wuxuu arkay baabuuro military oo ay ku qornaayeen Iron Mountain. Baabuurtii way baxeen. Wuxuu u laabtay Bardaja, wuxuuna u sheegay baabuurtii militariga ee uu arkay. Markay cuntadu dhammaysteen ayaa waxay joodariyaashooda dhigteen keynta dhexdeeda si ay u hurdaan. Habeenkaas diyaarad ayaa Bogas soo kormartay, wuxuuna bilaabay inuu riyoodo. Wuxuu ku riyooday iyadoo uu cirku noqonayo dhagaxaan muraayad leh. Kadib dhagaxaantii muraayadda ayaa burburayay, wuxuuna arkay gabar qurux badan oo ku dhex jirtay. Markii uu soo toosay, wuxuu maqlay dhawaqa gaari, wuxuuna arkay gaarigii oo bacaad galay. Darawalka gaarigan ayaa ahaa isla gabadhii uu riyada ku arkayay. Wuxuu u tagay si uu u caawiyo, laakiin lama aysan hadlin oo iyadoo fiirinaysa ayay ka tagtay. Waxaan filayaa inaad adigu muuqaalkan daawanaya aad fahantay inaan loo dhowaan qof aad riyo ku aragtay. Bogas intuu naagtii eegayay ayaa Bardaja u yimid oo u sheegay inuusan ismurjin, sababtoo ah isaguba xaaskiisii uu jeclaa ayaa sidan oo kale uga tagtay kadib markii ay carruur u dhashay oo ayna ka dalbatay inuu furo. Wuxuu kula taliyay inuu noloshiisa hore u wato, balse Bogas haweeneydii ayuu maskaxda ku hayay intii ay alaabtoodu xirxiranayeen. Markaas si kadis ah wuxuu raadiyowga uga maqlay warka ku saabsan in meel ka mid ah gobolka ay hadda joogaan uu ka qarxay foolkaano aad u weyn, taasoo dhibaato badan geysatay. Soo kale gobolkan ayaa ka go'doomay dhammaan gobollada kale ee dalka. Meesha ay wax ka dhaceen ayaa ahayd meel u dhoweed oo gabadhii quruxda badneedna halkaas ayay u socotay. Sidaas darteed Bogas wuxuu Bardaja ka dalbaday inay meeshaas aadaan oo ayna soo arkaan wax socda. Bardaja waa uu fahmay in Bogas uu halkaas ugu socdo gabadha darteeda oo si cagjiid leh ayuu uga aqbalay. Markii ay yimaadeen buurtii foolkaanada ayaa Bardaja ay hurdo qabatay. Markaas Bogas wuxuu sheeko u waday Bardaja, laakiin markii uu ogaaday inuu hurdayo ayuu baabuurkii joojiyey oo uuna ka soo degay si uu meesha u eego. Wuxuu arkay alaab military oo meesha taalay, wuxuuna la soo baxay kaarkiisa aqoonsiga si aan loogu khaldoomin, isagoona ku hadaaqayay inuu booliis ka tirsan yahay. Si kastaba ahaatee, qofna ma aysan u jawaabin. Wuxuu meesha ku arkay bohol weynin badan. Wuxuu kaloo arkay jaranjaro god ku dhex jirtay taasoo meesha lagu galo. Markii uu gudaha caga dhigtay, wuxuu arkay qof dhagax laga dhigay. Dhagaxaasna dhankiisa ayuu u soo jeeday. Wuu ka argagaxay oo cabsi darteed ayuu u simbirrixday. Wuxuu isagoo cabaadaya is arkay isagoo dhex taagan gudaha godka. Wuxuu filayay inay dad joogaan halkaas. Isagoo aaminsan inuu booliis yahay ayuu u sii dhaadhacay salka hoose ee buurta. Wuxuuna arkay dhowr dhagax oo qaabka bini'aadamka lahaa. Markaasna waa marka uu waaga u baryi doono oo uuna fahmi doono waxa dhabta ee meesha ka socda. Wuxuu arkay dhagaxaan sida bini'aadamka oo kale gacmaha u haatinaya. Wuxuu ugu dambeyntii arkay qof dhankiisa u soo socday. Qofka ayaa soo ordayay isagoona Bogas u sheegay inuu meesha ka cararo. Wuu dhuuntay oo wuxuu indhihiisa ku daawanayay qofkii oo dhagax isu beddelaya. Wuxuu maqlay codkan ayaa ugu digaya inuu u soo dhowaado, oo qof kasta oo u soo dhowaadana dhagax ayuu noqonayaa. Waxa uu qabsaday qalab agtiisa yaalay si uu baalka ugu garaaco. Wuxuuna arkay gabadhii quruxda badneed oo dhankiisa u soo ordaysa. Wuu u soo baxay si uu u badbaadiyo, laakiin iyadu waxay u sheegtay inuu meesha ka ordo. Waxay kaloo u sheegtay in baalka qofkii u dhowaada uu dhagax isku beddelayo. Indha adeegiisa meesha ayuu sii aaday, wuxuuna arkay baal indha biriq lahaa oo dhankiisa ayuu u dhaqaaqay. Markii uu xoogaa u jiray baalka ayaa uu cagaha wax ka soo dayay. Isagu iyo gabadhii waxay ka soo baxeen godka, waxayna isku dayeen inay dhuuntaan. Baalkii ayaa soo daba kacay, waxayna ku hoos dhuunteen mid ka mid ah baabuurtii weyneed, halka uu baalku u sheegayay inay soo baxaan. Bogas jiha kale ayuu dhagax ku tuuray si uu baalka u mashquulo, wuxuuna gabadhii weydiinayay waxa ay samayn karaan. Waxay u sheegtay inuu muraayad raadiyo, sababtoo ah waddada kaliya ee baalkan looga adkaan karo waa in muraayad loo isticmaalo. Aakhirkii wuxuu helay muraayaddii, oo markuu baalkii u soo dhowaaday ayaa Bogas nacasnimadiisa uu muraayada ku tuuray waa ayna kala jabtay. Markaas gabadhii ayaa iyadoo xanaaqsan Bogas u sheegtay inay ka rabtay inuu baalka muraayadda tuso, sababtoo ah marka uu isagu is eego dhagax ayuu isku beddelayaa.
nasiib wanaag Bardaajo ayaa soo toosay oo isagoo baabuurka adeegsanaya ayuu bahalkii buurta ka tuuray oona godka ayuu ku dhacay. Cabbaar ayay wax walba degeen iyagoona moodayay inuu bahal ku dhintay. Bogas wuxuu adeerkiisa baray gabadhii. Intii ay wada hadlayeen ayaa bahalkii uu soo laabtay. Bahalkii Bardaajo ayuu kala tuuray wuxuuna isagoo seentiisa isticmaalaya ku dhuftay Bogas. dabadeed bahalku wuxuu u jeestay dhankii gabadha isagoo isku dayaya inuu ku qanciyo inay wejigiisa soo egto, balse iyadu waa ay diiday inay madaxeedu kor u soo qaado. Intii uu dhulka jiifay, Bogas wuxuu galay riyo maalmeed. Riyadu wuxuu ku arkay sawirka gabadha oo ku dhex jiray cirkii muraayada lahaa, kadibna uu si tartiib ah u burburayo. Wuxuu mooday inay wax walba sidan oo kale ku dhammaanayaan. Calaamad ayuu calaacashiisa ku arkay isagoo cirka ku aadinaya. Markaas wuxuu arkay taleefan dhinaciisa yaalay. Wuu istaagay oo wuxuu soo qabsaday taleefankii. Waxa uu isticmaalay muraayadii taleefanka, wuxuuna si toos ah ugu aadiyay wejigii bahalka. Bogas wuxuu jirkiisu bilaabay inuu durba dildilaaco, maadaama uu sidoo kale isagu eegayay bahalka. Waxa uu bahalkii tusayay taleefanka ilaa uu ka noqday dhagax sanam camal ah. Markuu dhagax isku bedelay ayaa adeerkiisa iyo gabadhii ay u soo dhawaadeen iyagoo faraxsan. Goor dambe fiidkii kooxdii inanta ayaa yimid si ay alaabtooda meesha ugu urursadaan, halka Bogas uu la fadhiyay Bardaajo. Bardaajo ayaa markaas macsalaameeyay Bogas. Gabadhii ayaa Bogas u timid iyadoo u mahadcelinaysa. Waxa uu weydiiyey in mahadcelinteedu ay intaas la eg tahay. Waxa ay weydiisay waxa uu ka rabo. Wuxuu u sheegay inuu rabo in maalinta Axadda ay kulan casho ah wada qaataan. Way ka aqbashay balse waxay uga digtay inuu ubax jecel u soo qaado, kadibna waa ay ka soo tagtay. Hagaag waxaan filayaa in Bogas uu markan faraxsan yahay, sababtoo ah wuxuu u dhawaaday gabadhii uu darteeda naftiisa halis u geliyay. waad ku mahadsan tahay daawashadaada muuqaalkan. subscribe sar kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah. furo gambaleelka oo noora black si aad u caawiso kanaalka. mahadsanid.